siyaasiyiinta iyo waxgaradka ku shirsan degmada Garbaharey ee gobolka Gedo ayaa waxay ku eedeeyeen ciidamada maamulka Jubbaland in ay ka dambeeyaan dilalka ka dhacaya magaalada Kismaayo. Muxyidiin Macalin ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. kulankan oo ay yeesheen waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gedo oo hogaaminaya Ugaas Maxamed Ugaas Cumar Ugaas Cirsi ayaa waxa lagu eedeeyay ciidamada maamulka Jubbaland inay ka dambeeyeen dilal ka dhacay magaalada Kismaayo oo loo geystay dad shacab ah. waxaana sidoo kale waxgaradkii madasha ka hadlay eedeyn u jeediyeen dawladaha dariska oo ay ku eedeeyeen inay qayb ka yihiin dhibaatada loo geysanayo shacabka gobolada Jubbooyinka gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ee lagu laayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. waxaan cadeynaynaa oo sheegayna oo shirkadu ku jahaysan yahay waxa xilka loo ka socda Kismaayo beesha sade ma taageersana ma ogelin meesha dadka lagu xasuuqay weeye nin meesha hadii ay ku leeyahay dadkiisii lagu laayay oo dunyadiisii lagu dhacay oo hubkiisii lagu qaatay oo gabdhihiisii lagu faraxumeeyay ninka ka qayb galay meesha sida matalo ma aha waan cambaaraynayna maamulka Marooqsiga oo laga wado meesha la yiraahdo Kismaayo waa cambaaraynayna meesha sida waxba kuma leh waxaan hadii la ogolnahayna ma aha waxaan kala eedaas ku shaka saarayna iga iyo dawladda federaalka ah oo ka raaliga ah oo hadii ku leeyahay rajadu tagahayo oo wax ka wada ayagana aad weyn baan ka sheeganaynaa waxaan rabnaa in bismillaahir rahmaanir rahiim shirkanaga maanta annagoo odayaashii dhaqanka gobolka Gedo wuxuu ku qotaa laba arrimood ku soo ururaya lambarka qodobka koobaad waxa weeye dhiigga daadanhayo oo Kismaayo ka daadanhayo oo dulmiga Kismaayo ka socdo dadka lagu leeyahay gudmigeedii iyo gabdhihii iyo la leeyahay bal in la joojiyo oo maanta ka hadalno oo Soomaaliya aanu sheegno ogeysiino oo xuquuqul bini'aadamka aanu sheegno in arrintaas wax la qabto waa qodob weeye waa laga hadlay arrintaas waxaan codsanaynaa 4 sano socota dilkaas iyo barakacintaas Kismaayo ka socoto in la joojiyo oo beeshaan gobolka Gedo ka soo joogo arrintaas ay isaga timid arrintaas in la joojiyo maaragtay aan soo joogayna qodobka labaad waxa weeye inaan cadayno inaan ka mid ahayn shirka la sheegayo leeyahay Kismaayo maamul loo sameeyay xildhibaan lagu dhisayaa in la joojiyo qaybna qayb ka mid annagu madadabkeedii halkaan aan ku shirsannahay meelii ka dhalanaya maamul oo dadka lagu leeyahay haddana in la dhaho maamul baa lagu sameeyahay xildhibaan lagu magacaabaya arrintaas oo arrin iska markaa ma aha oo isdidanta meel nabadeed oo wax lagu dhisay meel colaad iyo dhibaato ka taagan waxa lagu mariso marka hore heshiis baa ka horeeyay weligeedna lama qabanin timirtii hore ba dab loo waaray Soomaalidu ku mahmaadaan maamulkii hore oo Kismaayo ka jiray baa lagu qabay labadii sano ku dhawaad hadda jira xasuuq waxaan ahayn laga faa'iidin dib waxaan ahayn iyo dib aan laga faa'iidin haddana asaga la leeyahay haddana hal sii joojiyo hadda waxay faragelisay iga dhaqanka xeer dhaqanka anagu aan ahayn iga faragelisay siyaasadda lagu ogaa dhaqanka ku darsatay dad bay tamay ka qaday waxay leedahay dhaqankii waa dheeyay Muxyidiin Macalin Abdullah Somali Journal magaalada Muqdisho.